waxaan la kulannay cali maxamed cali seeko oo ahaa afhayeenkii hore ee maamulka gobolka banaadir kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee ku soo dhow telefishinka Universal bal shirkaaga jiraa'id muxuu salka ku hayaa maxaa ugu soo beegay xilligan bismillaahir rahmaanir rahiim adeer waxa weeye waa maasantiin shirkayga jiraa'id wuxuu salka ku hayaa oo aan ka hadlay laba qodob wuxuu ahaa wixii dhacay maalmihii la soo dhaafay iyo raggii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliyeed oo dhintay inaan u tacsiyeeyo wixii dhibahoo jira oo la kala tabanayana cid walba qaladka ha lahaatee lagu dhex dhammeeyo shuruucda iyo dowladnimada dhexdeeda taasay ahayd aadna anuga xumahay in maaragtay dad dhalinyaro ah oo shabaab Soomaaliyeed oo qarankooda u shaqaynaya ay si macna daraan nooga dhintaan taasay ahayd midda labaad waxa weeye aan ka hadlayay ayaamahan waxaa soo badatay gobolka banaadir martiyaa lagu yahay dad Soomaaliyeed in la yiraahdo iyo waa la kala leeyahay waagii hore dad yar oo ma ogtahay farakutiris ahaa oran jiray laakiin hadda siyaasiyiin waaweyn ku soo biiray oo aad moodaa inay aad ugu dhiiranayaan hadalladaas gobolka banaadirna waad ogtahay oo waxa dastuurka Soomaaliyeed ku yaala inuu maqaam gooniya qaadanayo markii federaalka la qaadanayay ee la soo qoray dastuurka waxa lagu soo qoray gobolka banaadir waa caasimadii Soomaaliya ha ahaadee maqaam gooniya oo baarlamaanka ka yimid oo madaxda qaranka soo wada maray oo sharci ah ayuu yeelanayaa yaa ku qoran marka waxa weeye halka baa loo mari karaa gobolka banaadir iyo maamulkiisa iyo nidaamkiisa meel kale oo dadka u bannaan ma jirto marka gobolka banaadir dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya waa caasimadii Soomaaliya waa madaxii iyo calooshii Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa taala oo dhex taala in maanta nin siyaasi ah wadanka inuu xukumo rabo bari inuu madaxweyne ka noqdo ama maamul ka noqdo rabo uu yiraahdo gobolka banaadir hebel iska leh iyo gobolka banaadir martiba lagu yahay taasaan ka digay oo ceeb ah siyaasiyiinna waa uga digayaa Soomaali in la kala irdheeyo oo ay kala tagto oo ururska hadda la soo ururinayay la sii kala dirana waa uga digayaa odaynimadeyda marka waxa weeye arrimahan ka hadlay arrimahaas ay ahaayeen waxaa berihii ugu dambeeyay aad u soo xoogaysanayay khilaafka u dhaxeeya madaxda dalka ka talisa iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed isla markaana keentay inaad ka hadashaan arrimahaas isdiidan ee xilligan ka jira Muqdisho maxay tahay sababta xilligan siyaasiyiinta ay u muujinayaan carada ay u qabaan dawladda aan sanadka gaarin ee farmaajo u hogaaminayo horta waad ogtahay challenge-ga siyaasadeed mar walba meel walba ka jira adduunka siyaasadda waa la isku hayaa xukunkaas iyo kursigaas way wax la isku hayaa wax kale maaha awalna waa lagu tartamay waad ogtahay mucaarad la'aanna dee ma dhacayso oo dawlad Soomaaliyeed dawlad walba oo jirta mucaarad bay leedahay mucaaradna way u baahan tahay laakiin mucaaradkan waxaan rabnaa mucaarad wax dhisaya inuu ahaado mucaaradkan waxaan rabnaa muraayad la iska arkay qashinka la isaga tiraya inuu ahaado mucaaradku inuu wadadaas adeegsadaan ka rabnaa dawladda federaalkana waxaan ka rabnaa mucaaradkeeda inay soo dhaweyso inay la hadasho inay wada hadlaan inay qof dembi flagranta lagu haayo mooyee inta kale ay hadalkooda u furto isla markaas waxaan leenahay dawladdu xaqay u leedahay cid walba oo istiraado dawladnimadu ka hor imaanaya inay isticmaasho showkadeeda inay isticmaasho marka waxa weeye dawladdu mucaaradka ha dhagaysato wax alla wixii aan qaranka qatar ku ahayn wax toosin ah ha qaadato muraayadde waxa la isaga tiraa qashinka la isaga tiraa marka waxa weeye waxaan leenahay mucaaradku waa muraayad markuu dhaliilaha sheego hadda dhaliilihii jiraan waa ina dhaliilihii wax laga qabtaa mucaaradkana waxaan leenahay wax aan dhaliil wax dhisaysa ahayn dawlad dubin ah ha ku kicin inaan leenahay marka wax la isku hayo waa intaas waa la isfahmi waayay mooyee wax la isku hayo inay taas taan aaminsanahay annaguna marna ma taageerayno dawlad la'aan waxaan taageerayno waa dawlad waxaan u baahanaa waa dawlad maanta meeshaan marayna iyo maalintii carta laga yimid meeshaan marayna inay kala duwan yihiin cid walba way aragtaa marka waxaan leenahay yaan lagu kadsoomin siyaasi dan leh inuu dawladdiina in ka hor keeno shacabka Soomaaliyeed taasaan leenahay dawladdiina ilaashada meesha ka timaadeen waa ogtihiin
qax iyo dhibaato iyo kuf iyo dhac iyo xabad waa ka timaadeen maanta waxaad maraysaan in magaalada Muqdisho ninka mas'uulka oo laba askari wadan karo oo askara waliba oo Malaysia aan ahayn marka waxa weeye waxaad maraysaan inaad 12 habeenimo 10 habeenimo adeeganaysaan marka noloshaas soo ifaysa dawlad baa bedelaysay inta ku ekaada oo marnaba yaan la isku dayin hadii qalad dhaco in qabiil lagu xalliyo waa in lagu xalliyaa sharciga iyo dawladnimada dhexdeeda in lagu xalliyaa weey intaas aan leenahay waxa weeye marka waa intaas dawladnimadu waa intaas waxa kaliya oo u baahanahayna waa dawlad weeye xarig isu dhiib weeye ninka maanta aan madaxayn bariyo madax noqonaya ninka maanta madaxayna bariyo ka degaya inta kaliya loo baahan yahay in la garto marka adeer